marka waxa ay aayaadku inoo muujinayaan qofka naftiisa iyo nafiiskiisa wixii qaali ahaa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala ee amarka ilaahay qaatay inuu leeyahay fadli aad u fara badan sidaa daraaddeed axaadiid iyo aayaad badaniba way ammaanayaan qofka shahiidka ah rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uhi yukfaru lishahiidi kullu shayin ila dayn qofka dagaalka gaalada ee xaqaa ku shahiiday wax walba waa laga dhaafayaa deynta mooyaane marka baasha deynta la yidhaha culayska ay leedahay ayaa xadiidku uu inoo muujiyey iyo inuu qofku iska yareeyo ama iska ilaaliyo qofka mu'minka ahayna inuu u han weynaado shahaadadaas waa dhiiriyey nebigu xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa wuxuu nebigu yihi man sa'ala allaha ashahaada bisidqi qofka iyaday ka dhabta ilaahay shahiidnimo weydiista ilaahay wuxuu gaadhsiiyaa darajada shahiidka dalkiisaba ha ku dhinto ama meeshiisaba qofka shahiidka ahay 7 arrimood buu leeyahay buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam midda horeysa waxa weeye dhibicda u horeysa ee dhiigga ahi markay ka soo daadato ilaahay dembigiisu dhaafaa jannada meesha uu ka degayo ayuu tusiyaa markiiba isha loo saaraa si uu nasto xullat aliimaan buu ilaahay saaraa badlad gaar ahoo awliyada ilaahay u geliyaabaa loo geliyaa 72 shuhaada xuruuciinta ka mid a ayaa ilaahay uu u guuriyaa cadaaba qabrigana ilaahay uu ka badbaadiyaa waxaa kaloo ka badbaadiyaa min alfazaci alakbar argagaxa weyne qur-aanka ilaahay uu ku sheegay aakhiro waxaa madaxiisa la saarayaa taajulwaqaar taajka weyne markaa haybadda ayaa la saarayaa 7 ehelkiisa ana ilaahay wuxuu ka aqbalaa ergadooda 7 ehelkiisa ahoo la haystayaala ayaa ilaahay uu ku maareeyaa markuu ergeeyo ee uu ilaahay kuwan tol baan ahayn bal ka sii daa xadiidkaas waa saxiix 7 arrimood sheegaya maalinta iyada nusuus fara badan baa jirta oo maaragtay ka waramaysa shahiidka iyo fadligiisa iyada oo aanay xayeysiis ahayn xaq tahay iyo wax ilaahay uu noo sheegay subxaanahu wa tacaala qisada markaynu eegno uxud ama ghaswada dagaalka uxud waxaa ka muuqanaya karaamaad iyo mucjizaad uu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam iyo karaamaad ay lahaayeen awliyadii ilaahay asxaabtu qaarkood waynu soo sheegnayoo waxaa ka mid ahaa asxaabigii abi qataata ishu ay ka soo dhacday ee uu nebigu dib ugu celiyey calayhi salaatu wasalaam ee caadiga noqotay waxaa ka mid ahaa go-aanku nebigu ka gaadhay ama jawaabtuu ka sheegay qasmaan ninkii la odhanayay waa nin dhanoo shahaadanayo dagaalamayo dadkuna ammaanayaanuu nebigu leeyahy waa ahlu naar sidii bay u dhacday oo dee maqaaladiisii ugu dambeysay waa inagii soo xusnay waxaa ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabi waranla ahaa oo aan hubsidanin oo cabdillaahi bnu jaxshi la odhanayay ayaa uu u dhiibay qori xaabo ah ayuunbuu ku taagay markuu saa u qabtuu saa u lulayna seeftii ugu qawisaneed bay noqotay sidii ushii nebi muuse ilbiriqsiga ay isku beddeshay ayaa qorigii xaabada ahaa unbaa wuxuu noqday seeftii ugu yaabka badnayd ee ugu hilaaca badnayd waa mucjizaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam berigii dambena waa la kala dhexli jiray oo ilaa beri dambe la iibiyey intii weligeed saasay usii shaqaynaysay u socotay waxaa ka mid ahaa nin gaalada ka midaba wuxuu yihi allahuma in kaana muxamadu calىa xaqin faksif bi alard ilaah maxamed waxaa u wada hadduu xaqii dhulka ila aabu la go-ayba arrin taariikhdu ay xusayso wey mucjizaadka nebiga ka mid ahay calayhi salaatu wasalaam waxaa karaamaadka ka mid ahaa asxaabigii la odhan jiray sacd bnu rabiic iyo anas ibnu nadr oo kolley taariikh dheer leh iyo dagaalkaana maaragtay wacdara ka muujiyey waxay helayeen riix aljanna udgoonka jannada ayaa markiiba ay u sheegayaan saaxiibadood inay dareemayaan waxaa ka mid ahaa karaamaadka asxaabigii xandala la odhan jiray maaragtay naanaystiisu ahayd khasiilulmalaa'ika malaa'igtu ay u maydhaysay nebigu wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam asxaabigaasoo malaa'igta ilaahay ay u maydhayso meydkiisii ay maydhayaan xaaskiisii baa la weydiiyo waxay tidhi isaga oo jinaabo lahoo weli aan maydhanin aroos cusub buu haayo ayay qayladu soo yeedhay mabuu haleelinba intuu maydhanayay horay buu ka galay dagaalka halkaana waxaa laga fahmay in shahiidka sida kale aan loo maydhaynin laakiin hadduu jinaabo leeyahy la maydhayo maadaamuu nebigu taqriiriye calayhi salaatu wasalaam taasina wuxuunay tilmaamaysaa qofka marka ay diintu ku weyn tahay dadkiisii aroosadiisu uga tagaa
waxaad oran lahayd 40kii baan wali ku jiraa iyo 7 bixi bal hadda la yarkaadiya sii socda wala yara cudur daaraya islaantii baa cusube halkaad ka oran lahayd isagu meydhashadii buu ka gaarsiin waayay waa rag la doonay in lagu daydo ghasiilul malaa'ika baa la yiraahdaa xandala ghasiilul malaa'ika Hamza ibn Abd al-Muttalib iyo maaragtayaan aan iraahdo Jaabir ibn Abdullah aabihi isagana malaa'ikta ayaa u hareynaysa buu tilmaamay rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo bacadka uga hareynayay qisada waxyaabaha laga faa'iideysto waxa kamida in lagu tala galo wixii loo baahan yahay marka jihaadka lagu jiro sida tadaawiga oo kale oo dumarka qayb baa mumaridaad ahaa ama qaybta waxaan la yiraahdo logistikada ama gurmadka qaabilsanaa iyo taageerida kuwa dhaawacan bay daaweynayeen waxay qaadayeen dadka dhinta iyo dhaawacaba biyahay waraabinayeen waxa kamid ahaa inantii rasuulka sallallahu alayhi wasallam Faadima oo waati aabaheed bay daaweynaysa markuu dhiigi joogsan waayay dabbay marka dambasbay sameysay cawbay gubtay say ku shubaysay goobta laftigeeda qisada marka dib ugu noqoto waxyaabaha laga faa'iideysanaya waxa kamid ah inay mushaarakeyn karaan ama ka qayb qaadan karaan dumarku dagaalka waa qof iyo tamartii oo dumar badan baa hadda qisada dib u akhrido maalinta dagaalka qayb ahaa oo xaasaskii nabigu ay kamid ahaayeen calayhi salaatu wasalaam sida Caaisha kale oo ay kamid ahayd inantii rasuulka sallallahu alayhi wasallam Faatimatu Zahra iyo saygeedii Cali oo aabaheed ay hareera taagnaayeen oo daaweynayeen hawlaha ay qabanayeen hawlaha aynu soo sheegnay ay ahayd bal qaarkood baa gacanta ka dagaalamay sida saxaabiyadii loo yaqaanay Nusayba al-Ansariya Ammar ayaduna waxay ahayd runtii mid gacanta ka dagaalamayso nabigu la yaaba uu yiri hebel iyo hebel waxa ka wanaagsan maanta ka taya badan Nusayba dagaalkana qurana mu ahayne dagaaladii aadka sida Uhud Hunayn Yamaama bay'atu Ridwan bay'atu al-Aqaba goobaha soo dhan oo maaragtay aad iyo aad maalmahaasi ay u adkaayeen iyaduna mushaarakai samayso way ka qayb qaadatay iyadoo dabcan aadaabtii sharciga ahaana dee la ilaalinayo maxramkoodii ay la socdaan oo xijaabkoodii ay iska leeyihiinoo wax badan baa qisada laga faa'iideysanaya kuwayaalaha ayaa kamid ah oo runtii aynu arkaynaa inoo muuqanaya